caqliga waa waxa dadka kala sareysiya oo suura geliya inay wax badan ogaadaan wax badan qabtaan iyo golow inaan kula wadaago 8 calaamadood oo tilmaamaya dadka caqliga badan. kow waa kuwa gartay eebihii abuuray aaminay sidoo kale raacay wixii uu faray kana haray wixii uu ka reebay. labo xulashadooda mar walba waxay ku tacalluqdaa caqligooda bedelkii dareenkooda. waxay mar walba qaataan waqti ay kaga fekeraan oo ay ku qiimeeyaan xaaladda soo wajahda ka hor intaysan go'aan qaadan. qiimeyntaas ayayna ku dabaqaan go'aamadooda bedelkii ay raaci lahaayeen emotionkooda ama dareenkooda. labo waa kuwa dulqaad badan. dulqaadka waa akhlaaq lagu yaqaano dadka caqliga badan. haddii aad tahay qof caqli badan waxaad mar kasta ogsoon tahay in wax kasta wanaagsan gaaridiisa ay qaadanayso waqti iyo dadaal badan. waxaad sidoo kale dulqaad u muujinaysaa dadka kale. saddex waa kuwa dhageysigooda ka badan yahay hadalkooda. dadku way qiimeeyaan kuwa si wacan u dhageysta sheekadooda balaas dadka dhageysiga badan waxay aaminsan yihiin in dadka kale wax badan ka baran karaan. marka ay hadlayaan waxay dadka la wadaagaan fikradaha ugu wanaagsan. shan dadka caqliga badan waa kuwa hambal ah oo aan dadka iskala weyneyn. sidoo kale dadka kale kama raadiyaan attention. waxay ogyihiin inay wax badan ka baran karaan dadka iyagana wax laga baran karo. iskama weynaysiyaan dadka kale guulo ay gaareen darteed. dadka oo dhan waxay ula dhaqmaan si naxariis leh oo laab furan. waa kuwa isku kalsoon oo ku faraxsan guushooda ugumana baahna dadka kale ammaan si ay farxad u helaan. lix waa kuwa maskax furan oo soo dhaweeya fikradaha dadka kale. haddii aad tahay qof caqli badan waxaa la muraana inaad soo dhaweyso fikradaha kale ee kaa soo horjeeda. sidoo kale ma dhaliilaan dadka kale shakhsiyadooda. waxayna aaminsan yihiin in qof walba leeyahay fikir iyo khibrad isaga ama iyada u gaara. toddoba waa kuwa naftooda ka warhaya isla markaana la xisaabtama. dadka caqliga badan waxay garanayaan xilliga ay tahay inay nafsadooda qabtaan marka ay xaaladda kacsan tahay iyagoo qiimeynaya dareenadooda. waxay sidoo kale ogyihiin ficil kasta inuu la socdo caqabadiisa. sidaa daraaddeed naftooda keliya kama fikiraan waxay kaloo qiimeeyaan xaaladda dadka kale. marka ay qalad sameeyaan waxay leeyihiin awood ay ku qirtaan qaladkooda. ku darso waxay la xisaabtamaan naftooda iyagoo wax ka bedela dhaqannada ka khaldan. 8 waxay jecel yihiin wax akhrinta. sifada lagu yaqaano dadka caqliga badan ayaa ah inay jecel yihiin inay helaan macluumaadka ay u baahan yihiin. sidaa daraaddeed waa kuwa waqti siiya akhrinta ama dhageysiga maalin walba. haddaba ma jiraan tilmaamahan qaar aad adiga leedahay? nagula wadaa fikirkaaga qaybta kommentiga. sidoo kale ha iloobin inaad subscribe tiraahdo kanaalkan gambaleelkan aad furato si aad ula socoto muuqaalka xiga. mahadsanid.